kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkan waa Warsan News waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qaybtan waxaynu ku eegi doonaa wasiirka difaaca xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa tagay furmaha hore ee dagaalka ay isku horfadhiyaan Somaliland iyo ciidamada waqooyi bari heegan ayaa la geliyay ciidanka waxna dila wadaagi doonaa dardaaran uu u jeediyay iyo in ay u diyaar garoobaan difaac qaran oo ka dhan ah waxa loogu yeeray gooni-goosadka iyo shaqeeyaha ee duulaanka ku ah dhulka Soomaaliyeed wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqan halka ka soconaya iyo sida Somaliland ay uga falcelisay talaabadii wasiir Fiqi uu halkaas ku booqday ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa madaba in wasiir Fiqi ama wasiirka gaashaandhigga uu dalbaday in la duqeeyo deegaanada Somaliland gacantana lagu soo dhigay Cabdiraxmaan Cirro muxuu ka yiri arintaasi xogo iyo macluumaad dheer ah oo faahfaahsan ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa yay tahay cid la wareegaysa mas'uuliyadda ciidankii ay imaaraadka gacanta ku hayeen kadib go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada oo guud ahaan looga baxay nooc kasta oo heshiis oo ay kula jireen imaaraadka carabta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inta aynu ku guda jirno baahinteena qaybtan wixii warar ah ee degdeg ah soo kordha ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiina haddii aad nagu cusubtiina ku soo biira barteena YouTube channelka aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada nagu xiran wararka warbixinada muuqaalada aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahinana si toos ah u daawada hagaagkan ku bilaabo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta tagay furmaha hore ee dagaalka ama jiidda hore ee dagaalka oo isku horfadhiyaan ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka waqooyi bari gaar ahaan halka loo yaqaan Gumeys halkaas oo uu si toos ah ula hadlay kumanaan askari oo halkaasi u jooga difaaca amniga guud ee magaalada Laascaanood iyo difaaca midnimada Soomaaliya wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu kormeer guud uu ku sameeyay xiradaasi iyadoo oo la soo bandhigay gaadiidka nooca dagaalka oo ay ku rakibay yihiin hubka culus waxaana uu kormeerkan kadib uu saraakiisha gacanta ku haysta ciidankan uu ka xog wareystay xaaladda guud ee ciidankan iyo sida ay halka ay uga howlgalayaan waajibaadka qaran ee saaran sida ay u gudanayaan inta kadib wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu salaan sharafeed ka qaatay cutubka ciidan ee halka ku sugan kadibna waxa uu u jeediyay khudbad dheer ah uu kaga hadlayay muhiimadda ay u leedahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya helida ciidamo cudud leh oo difaaca qaranka diyaar u ah iyo in magaalada Laascaanood markii ugu horeysay ay martigelinayso madaxda qaranka ah oo wada jira iyo in magaaladaasi muddo sanado ah kadib uu ka babanayo calanka Soomaaliyeed oo dadka wadaniyada ee Soomaalinimada jecel iyo dadka daneynaya in qarankooda uu guuleysto ay ku soo qulqulayaan wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidankan uu la kulmayo looga baahan yahay inay galaan heegan buuxda oo difaac qaran ah una diyaar garoobaan qorshe ka dhan ah midnimada Soomaaliya ee dhuleed ee ka soconaya dhinaca waqooyiga ee Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin waxna uu sheegay in ciidankan ay diyaar u yihiin ka hortagga cid kasta oo isku dayda inay kala goyso Soomaaliya wuxuuna sheegay in duulaan qaawan oo shisheeye imikan uu socdo loogana baahan yahay in cashiro lama iloobaan ah ay u dhigaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee ku sugan xerada Gumeys oo maanta uu booqday wasiir Axmed Macalin Fiqi waxa kale oo ciidankan kula dardaarmay in ay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan xasiloonida guud ee deegaanada gobolada waqooyi ama deegaanada gobolada la isku yiraahdo waqooyi bari ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee dawladda Soomaaliya ka hirgelisay maamul ahaan halkaasi booqashada wasiir Fiqi ee xiradan waxa ay carar xoogan iyo cabsi hor leh ay ku abuurtay maamulka Somaliland oo siyaabo kala duwan arintan uga falceliyay waxayna ku tilmaameen in si toos ah ay dawladda federaalka Soomaaliya u soo bareertay in deegaanadeeda ay ciidan ku soo bandhigto isla markaana ay u diyaar garoobaan inay duulaan ku qaadaan dhulka deegaanada maamulka Somaliland waxayna cadeeyeen in ay diyaar garoob buuxda ay ka galeen taase waxay ku soo aadaysaa xilli ciidanka halka ku sugan oo lagu kabi doono ciidamo kale ay dhawaan ay dhoolatus military kii ugu xooganaa abid ay ka sameyn doonaan magaalada Laascaanood ee xarunta waa dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari oo qorsho u yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah taliyaha guud ee ciidanka qaranka goobjoog uu noqdo bandhigan waxaana Axmed Macalin Fiqi uu ciidanka la wadaagay oo xog ah in madaxweynaha qaranka uu soo booqan doono ciidamada dadka deegaanka ahna la qarameyn doono oo ay si toos ah markan uga howlgali doonaan deegaanada maamulkaasi
axmed macalin fiqi waxa uu ka hadlay hadal dhowaan kasoo yeeray isaga oo telefishinka aljazeera waraysi siinayo uu ka hadlay arrimo la xiriira in dowladda ay qaadi doonto tallaabo military hase ahaatee warkii uu ka yiri ka si ka duban ayuu sheegay in loo dhigay oo ah in la duqeynayo deegaanada maamulka Soomaaliland wuxuu sheegay in marnaba uusan ku baaqin in la duqeeyo deegaanada maamulkaasi iyo in si la mid ah la duqeeyo Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha maamulka Soomaaliland hase ahaatee uu ku baaqay in Cirro loola dhaqmo sidii Yaxya Al-Zubaydi oo dhawaan ka baxsaday gacanta ciidanka Sacuudiga ah ee ku sugan Yemen isaga oo u ololeynaya kacaanka wax loogu yeero gooni goosadka Yemen hase ahaatee uu ku baaqay in taas mid la mid ah ay sameeyaan bulshada ku dhaqan deegaanada Soomaaliland oo ay madaxtooyada ugu galaan iyaga oo godood ka muujinaya ficilada guracan ee uu ku soo dhaweysanayo Yahuuda ama Israa'iil sida uu hadalka u dhigay si kastaba haatee Axmed Macalin Fiqi wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya marka la eego waxa uu ka mid yahay xubnaha sida weyn ugu ololeynaya arinta la xiriira in gabi ahaanba meesha laga saaro waxa loogu yeeray gooni goosadka oo Soomaaliland 34 sano tagtay ee si weyn ay ugu ololeynayso in dunidu ay ka hesho Axmed Macalin Fiqi waxa kale oo uu baraha bulshada ku difaaca aragtida dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mararka qaarkood dadka dhaliila siyaasadiisa waxay ku micneeyaan inuu yahay shakhsi aan xiriirneynin marka la eego dhinaca iyo xaaladda siyaasadeed ee jirta waxana mararka qaarkood lagu tilmaamaa inuu yahay shakhsi dab ku shishida kara ama dab ku shida xiisadaha siyaasadeed ee diidan isagoo isticmaalaya eryaha naf leh oo keeni kara inay si kala fogaadaan dadka Soomaaliyeed ee ku kala sugan koonfur iyo waqooyi sistaba haatee waxa dhawaan rajeynaya in magaaladan Laascaanood uu gaaro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo diyaar garowgii ugu dambeysay magaaladan ay ugu jirto soo dhaweyntiisa dhammaan wadooyinka magaaladaasi ayaa lagu xardhay calanka buluuga ah ee Soomaaliyeed si la mid ahna waxa ku sugan ciidamo xooggan oo ka kala tagay Muqdisho Boosaaso iyo Garowe oo dhammaantooda diyaar u ah xaqiijinta amniga guud ee magaaladaasi iyo madaxda qaranka ee booqanaysa halkaasi maadaama ay soo ifbixeen digniino dhinaca amniga ah oo yimid ee la xiriira safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Laascaanood dadka qaar ayaa waxay ku sifeynayaan in Laascaanood oo lagu dilay Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweynihii dowladda Soomaaliyeed xiligan ay qatar amni keeni karto in madaxweyne Soomaaliyeed uu dib u booqdo magaalada Saasaate madaxda maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya waxay ku micneynayaan in tani ay tahay mid lagu suurad xumeenayo dadaalkii amni ee ay geliyeen magaalada Laascaanood xilligaasna aan la joogin hadda oo ay magaalada si guud gacanta ugu hayaan kana xasiloon tahay sidii hore wixii warar ah ku soo kordha dhinaca iyo Laascaanood waxaan idin kula wadaagi doonaa wararkeena kuwan xiga hadii aynu eegnana yay tahay cid la wareegayso mas'uuliyadda ciidankii uu gacanta ku hayay Imaaraadka Carabta kadib go'aankii toddobaadkan ka soo baxay golaha wasiirada ee lagu baabi'iyay dhammaan nooc kasta oo heshiis oo dowladda federaalka Soomaaliya ay kula jirtay dowladda Istaga Imaaraadka Carabta wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaan Umar Ali Abdi ayaa waraysi gaar ah oo uu bixiyay waxa uu kaga hadlay arrimo ku saabsan ciidamada gaar ahaan kuwa booliis militariga oo ay gacanta ku hayeen dowladda Istaga Imaaraadka Carabta ciidamadan oo ah kuwa gaar ah ayaa waxa uu u xil saarnaayeen amniga guud ee caasimadda Muqdisho iyaga oo nabad ku soo dabaalay Muqdisho iyo deegaanada ku hareeraysan caasimadda wasiirka ayaa wax laga weydiiyay arinta ciidamadan oo mushaarka ay siin jirtay dowladda la ceeriyay Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan dowladda Soomaaliyeed isla markaana ay si toos ah ay ula wareegtay mas'uuliyadda ciidankaas ee mushaar bixintooda dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay mas'uuliyadda ciidanka booliis militariga iyadoo gacanta ku haysa ayayna ku sii hayn doontaa ayuu yiri wasiirka sidoo kale waxa uu adkeeyay go'aanka dowladda dhexe ee lagu burburiyay dhammaan heshiisyadii hore loola galay Istaga Imaaraadka Carabta isagoo oo shaaca ka qaaday in ay isku filan tahay dowladda federaalka Soomaaliya oo xilligan isku filnaanshiyo buuxa oo ay dhaqaalaha ciidankeeda ku baxaya ay bixin karto hadii ay tahay amni iyo hadii ay tahay difaac waxa ay bixin jireen mar hadii aan bixinay heshiiska macnaheedu waxa weeyaan in aynu ka fogaanay oo isku filnaanay ayuu yiri
wasiirka gaashaandhigga waa wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya wax kale oo uu ka hadlay sida la yeelayo magaca xirada General Gordon oo horey loogu magac daray sarkaal Imaaraad ah oo lagu dhex dilay xiradaasi kadib markii ay weerar ka fuliyeen koox ka tirsan Al-Shabaab Umar Ali Abdi ayaa sheegay in dawladdu ay u taalo go'aanka haddii la bedelayo magaca iyo haddii la dhaafayo intaba waxaana ay ku soo aadaysaa xilli dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee dadka badan ay su'aalo iska weydiinayeen sida ay ciidankii police military gacanta ku hayeen Imaaraadka Carabta ay u maareyn doonto bixinta mushaaraadkooda waad ku mahadsantahay la gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen daawadayaasha qiimaha badanow waxaan idinkaga tegayaa nabadiino